السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال isu soo noqod wanaagsan waa Bowlimoog Media oo aad uga barateen inuu halkan idinka soo gudbiyo warar xiiso leh iyo dhacdooyin iyo casharo taxana ah oo ku saabsanaa YouTube-ka iyo waliba anagoo idin soo gudbino sheekooyinka markaa xiisaha leh. haddaba waxaanu kaga hadlaynaa klibkeenan heesta Maryan Axmadi oo qaaday fanaanka codka Tolmon ee Soomaalidu aadka u jeceshahay ee Qamar Suugaani. waliba fanaan kaliya ma ahan sida aynu ognahay Qamar Suugaani waa la xamiistay isagoo waliba la xameeyay heeso fara badan oo ay muddo waqti badan dad fara badan ku qaadatay oo la xameyn waayeen. haddaba Qamar Suugaani oo qaaday heestan Maryan Axmadi 3 bilood ka hor qiyaastii ayaa waxa ay baraha bulshada qabsatay asbuucyada haddeer ugu dambeeyay oo lagaga falcelinay ama lagaga sheekeynayay cod hoos kaga jira heesta taasoo ay dad fara badan ku tilmaameen in uu Qamar Suugaani diinta ka baxay walow uu isagu iska bari yeelay nafsad ahaantiisa isagoo soo fariistay bartiisa Instagram-ka waliba cadeeyay inuu yahay qof muslim ah. haddaba codkaasi hoos ka yeeraya maxaa uu yahay? heestan ayaa isna waxaa director ka ah Maxamed Soo Jeedo nin la yiraahdo oo Soomaalida daayirta aad u taqaan waliba kuwa ku xiran aflaanta Hindiga. haddaba inta aynaan ka hor dhicin ama ayna u guda galin ila dhageysta bal codka waxa uu yahay anoo dibna idinka faahfaahinaya muuqaal dheer oo codkaasna aan idinka maqashiin doono. haddaba intii maqashay codka way maqashay intii kalena dib ayaan si fiican oo waadix ah uga maqashiin doonaa. haddaba waxa aan klibkan usoo duubay Qamar Suugaani oo ay dadku qaabka uu tintiisa u jartay ee xataa ka sameeyeen fal celin walow aan anugu ku arag wax shakhsiyan isaga tintiisa ku qoraamada ka bedelan. haddaba studio-ga heesta lagu duubay ayaa waxa uu yahay production waxaa Y3A studio-gan oo xamar laga leeyahay janalkan ayaa waxa haddaba waan idinku soo celiyey mar labaad codkii si aad u wada maqashaan aniga oo ka duulaya in codka waxa uu yahay ee saxda ah la helo xaqiiqdiisa amaba halka uu salka ku hayo. Qamar Suugaani waa fanaan da'yar ah oo isaga loo dhiibo heesaha waad aragtaan qaabka uu tintiisa u jartay kuma qorna calaamadda alaamuneedka. haddaba studio-gan ayaa waxa ka dhex muuqata aniga oo calaamadeeyay barta aan kaga shakiyay studio-ga sida aan idiin sheegay ee production Y3A calaamad ayaa ka muuqata xaggiisa hoose taasoo aan anigu weli si sax ah aan u cadeyn hase ahaatee codka waxaan anigu qiyaasayaa sida uu isagu fanaanku waa iska bari yeelay heesta horta waxaa director ka ah saan hore idinku sheegay Maxamed Soo Jeedo dabcan iyo studio-ga waxaan ku aragnay xaggiisa hoose calaamadda aan idiin soo sawiray oo waliba aan qalinka cas idinku muujiyay macquul ma tahay haddaba sida uu Qamar Suugaani sheegay isagoo wax dambiya aan ku lahayn waliba bartiisa Instagram-ka isagoo soo fariistay oo isagoo waliba shahaadanaya oo arrintaasi beeninaya oo shakhsiyan aan idinka soo tarjuminaya afkiisa ka hadlayana ila dhageysta. محمد بجان اللهم صل وسلم على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
haddaba stuudioga in dib loo baaro iyo ninka directorka ka ahaa ayay arrintu isugu soo biyo shubatay baaritaan dheer iyo fiidiyoga dambena waan soo gelin doonaa. Fadlan janalka subscribe ha ka ilaawin si aad ula socotid waxyaabaha xiisaha leh ee aynu soo dhigno. Waa Bawlimoog Media, kulanti dambe oo xiiso leh.